Assalaamu calaykum subax wanaagsan idil ahaanba meel bood naga daawanaysaan halkani waa kharajoog qodobada wararkeena subaxnimo ugu waaweyn waxaa kamid ah warar dhinaca ayaa ka soo baxayo qasaaraha wararada isxigay maanta lagu qaaday tarbiyaal ajnabi ah oo ku sugan magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari iyo Soomaaliland oo war cusub ka soo saartay go'aankii dowladda Soomaaliya ay ka qaadatay dalkaasi Guinea xiriirkana ugu jirtay. Saudi Arabia has announced that the American hip hop star Nicki Minaj waddanka ku daawadan waxaa ka mid ah Sacuudiga oo casumay fanaanad aad u anshax daran oo baraha bulshada laga falceliyay iyo waxaan idinku ka haynaa halka ay ku dambayso xaaska baxsadka ah ee Ameerika Dubai oo la ogaaday qodobadaas iyo qodobo kale daahsan ayaan idinku ka haynaa haatan u diyaar garo warkeena oo dhameystiran halka aad nagala socotaan waa Kharajoog News. markale daawadayaasha qiimaha iyo qayaha lahow isku soo noqod haboon aan ku bilowno warar dheeraad ah ka soo baxayo qasaaraha iyo wararada isxiga maanta lagu qaaday tarbiyaal ajnabi ah ee ku sugan magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari waradani ayaa fuliyay kooxo hubaysan aan heebtoodii la garanaynin waxaana ay la beegsadeen tarbiyaal Ethiopian ah ee ku sugan magaaladaasi wararka koowaad ayaa ka dhacay wadada laamiga ah ee soo gasho Boosaaso kaas oo la beegsaday gaari ay la socdeen tarbiyaal ah sidoo kale wararka labaad ayaa ka dhacay gudaha magaaladaasi kaas oo isna lagu qaaday guri ay ku sugnayeen tarbiyaal kale ugu yaraan laba qofood oo mid kamid ah haweeney ayaa ku dhimatay wararkaasi halkaasi waxaana ku dhaawamay saddex kale waxaana dhamaantood ay ka soo jeedaan qowmiyadaha Oromada ee dalkaasi Ethiopia sidoo uu xaqiijiyay dad goobjoogayaal halka ku sugan Kharajoog News dadka ku dhintay wararkaasi ku dhacmay ayaaba ahaan gibigooda Ethiopian lamana oga ujeedka rasmiga ah ay ka dambeysay wararkaasi sidoo kale ma jirto wax war hadal ama ka soo saartay dowladda maamul goboleedka Puntland maalmood ay ahayd markii iskoorimaad u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo Maleeshiyaad ilaalo u ah kooxaha tarbiyaasha oo ka dhacay deegaanka Mareeri ee gobolka Bari haatana Soomaaliland ayaa war cusub ka soo saartay go'aankii dowladda Soomaaliya ee ka qaadatay dalkaasi Guinea wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Maxamuud Xiir Fartoon oo ka hadlayay go'aankii dowladda Soomaaliya xiriirka ku jirta dalkaasi Guinea ayaa markii hore talaabadaasi ku tilmaamay mid qalad ah wasiir Fartoon ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ku haysato go'aankeedii kana soo horjeedo horumarkeedii sidoo kale waxa uu sheegay in go'aankani uu cadaawad hor leh abuuri karo Soomaaliya iyo Soomaaliland Fartoon oo ku sugan Guinea ayaa intaas raaciyay in Soomaaliya ay go'aankani ay ku karto xiriirka dalal badan waxa kale oo carabka ku dhuftay in Soomaaliland ay haatan xiriir wanaagsan ay la leedahay dalal dhowr ah oo Afrika isla markaana ay sii horumari doonto waxa nasoo gaarayo waa sidoo hadalka u dhigay sida ay dabcan yiraahdeen علاقاتkan u goynay dalka Liiraaho Guinea ay ka xigeen boqoshada arintan waxana uu u aragnaa in maangaabnimo iyo aragti la'aan ay ku dheehan tahay aad moodo in ay ku qanacsan yihiin in Soomaaliland ay u xiran tahay nasiib darro say malaha ma oga in Soomaaliland ay dabcan calaaqaad la leedahay dalal badan oo isla markaana ay kamid yihiin Afrika bariga dhexe iyo Europe marar hore ayaa nagu soo dhaweeyeen maamuuskani qaran ee loo baahan yahay ayuu yiri wasiirka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay si rasmi ah shaacisay bahanba ay xiriirka u jirtay dowladda Guinea kadib markii ay si maamuus ah u soo dhaweysay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi haatana Sacuudiga ayaa casumay fanaanad aad u anshax daran iyo baraha bulshada ee looga hadal hayo arintani dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga ayaa wado isbedelo badan uu ka hirgelinayo boqortooyada Sacuudiga waxaana dalkaasi hadda laga hirgelinaya arrimo badan oo hore aan ugu jirin bandhiga 18 bishan ka dhacay magaalada Riyadh ee caasimadda dalkaasi Sacuudiga ayaa lagu casumay fanaaniin badan oo dunida caanka ah waxaana fanaaniintaasi halkaasi ay ku soo bandhigi doonaan heesi cayaaro fanaaniinta bandhigaasi lagu casumay waxa kamid ah fanaanada Nicki Minaj oo kamid ah fanaaniinta xilligaani ugu caansan caalamka waxaana ay fanaanadani ay ku soo aanbaxday anshax darro gaar ahaan inay qaawiso qayb kamid ah jirkeeda Nicki Minaj ayaa qaado heeso u badan kuwa dareenka kiciyo iyo sidoo kale ay soo bandhigto ciyaaro wali ah waxaana sidoo kale fanaanadani ay dhiiri gelisaa inay isguursadaan dadka isku jinsiga ah sida labada dumar iyo labada rag madaxa golaha murtida iyo madadaalada Sacuudiga Turkiga Al-Sheikhi ayaa sheegay in bandhigani ka dhacay Sacuudiga kaliya aan lagu soo bandhigi doonin heeso iyo qaybo kamid ay noqonayaan irsaacad iyo qamaar
waxa uu yiri alla idinkiis arimaha madadaalada waxa ay kamid ahaan doonaan arooyinka indhasracaadka iyo waxa uu yiri darajooyinka ay malawaalka iyo qamaarka si aan ragga iyo dumarka ugu tabarno inay haatan soo bandhigaan hibadu Ilaahay ku manaystay ayuu yiri Turki al-Shiiqi baraha bulshada ayaa si aad looga hadalhayaa fanaanadani lagu cusubay Sacuudiga waxaana ay dhalinyaro badan isweydiinayaan waxa Sacuudiga ay ka dhacayo marka fanaanadani dharka ay dhigato ayna soo bandhigto soo dareenka kaciyo dad badan oo baraha bulshada aragtidoodii ay ka dhiibtay ayaa ay ka ambaariyay Sacuudiga inay casuumaan fanaanadani iyo kuwo kale oo anshax darro lagu yaqaano waxaana ay dad badan ee tilmaameen in Sacuudiga xilligan uu ku socdo dabaqaldan bandhigani ka dhacay magaalada Riyadh ee caasimadda dalkaasi Sacuudiga ayaa kamid ah isbedelada farfanaanta ah ee lagu sheegay uu doonayo dhaxal suugaha Sacuudiga ah Maxamed bin Salmaan in uu ka hirgeliyo dalkiisa haatan Dubai halkee ayay ku dhuumanaysaa xaaska baxsadka ah ee amiirka Dubai warka u dambeeyay ayaa waxay sheegayaan Amiirad Haya bin Al Hussein ee xaaska amiirka Dubai Sheikh Mohammed Al Maktoum ayaa ka carartay saygeedii iyadoo qaaday talaabaan caadi ahayn boqortooyada Imaaraadka Carabta amiirada ayaa lagu soo waramayaa in imanka ay isku qaranayso guri ku yaal magaalada London ee dalkaasi Britain ila wareegtay lagu kalsoon yahay ayaa laga soo xigtay in amiirada nolosheeda u cabsatay maadaama ay isku diyaarinayso dagaal dhinaca sharciga ah iyo maxkamadda ay la korayso ninkeedii ay rabto inay iska furto Haya ayaa markeedii hore u baxsatay dalka Jarmalka orantii sanadkaani iyadoo ay magangeliyo doon ah balse waxa ay markii dambe u soo wartay London maxkamadda ay kula kori doonto saygeeda Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum iyo Haya ayaa isguursaday sanadkii 2004 waxaana ay ahayd xaaskii lixaad Amiirada Haya ayaa dhalatay bishii May 1974 aabaheedna waa boqorkii Hussein kii Jordan hooyadeedna waa Queen Aliya Al Hussein waxay jirtay 3 sano oo kaliya markii hooyadeed ay ku geeriyootay shil helicopter diyaaradeed waxaana ay ku aaba tahay oo ay la dhalatay boqorka imanka Jordan boqor Abdullaahi waxaan inta noogu idlaaday wararkii u dambeeyay amuuraha Soomaaliya iyo caalamka ee aad kala socoteen qaran joog news salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh